مدن عمر محمد waxaa garanaya waxqabadkiisa iyo kartidiisa iyo hufnaantiisa mas'uuliyiintii uu la soo shaqeeyay isagoo kamid ah golaha wasiirada in aanan dooq xumayn markaan xilka haya 3 sano mas'uuliyiinta ugu firfircoon ee meesha ka muuqata ama golayaashiisa ku jiraan ama saraakiisha ciidamada ayay ahaayeen ama xildhibaano ama wasiiro ama howlwadeeno kulligan waa idin wada salaamay inta goob jooga iyo inta ka dambayso ku soo biirtaba waxaan arkaa qiimeynta iyo sharafka iyo karaamada oo bilaabay gudoomiyaha cusub wuxuu casuumay gudoomiyaashii ka horeeyay ee gobolkan soo hogaamiyay waqtiyo kala duwan adag gudoomiye Cumar waxa looga fadhiyay waa yaqaana gobolka Banaadir umada ku nool oo ay u tahay hoyga qaranka gogosha qaranka sida uu sheegay gudoomiyaha golaha wakiilada Puntland wuxuu yiri waa madaxi waay hadii madaxu bukana jirka intiisa kale ma fayooban karaan waxa laga rabaa umada ilinta ku taala inaad ka tirto mudana gudoomiye inaad la timaado kartidaada iyo way aragnimada iyo amniga shaqada aad u leedahay aqaano umadani isma nacba guud ahaan baday Soomaali tahay waxyaabo ay ku kala shakiyaan oo badan baa jira hal hela cadaalad intaad hoggaankan hayso hal hela adeeg bulsho hufan hal hela kobac dhaqaale ee magaalada caasimadda iyo shacbigeeda hal hela garsoor hufan oo hay'adaha garsoorku kala shaqeeyaan hoggaankeedana qabataan ka rajaynayna annagu wax kale kuma noo laakiin waxaan rabnaa inaan kuna duceyno kuna hambalyeeno garabkaagana istaagna 24 saac oo lagu la shaqeeyo adiga maamulkaagaba ugu dambeyntii waxaan rabaa ma khasaarin madaxdi magacawday waqtigan inuu munaasab u yahay mudane gudoomiye Cumar Maxamuud Cumar Filish waqti munaasab ah la magacaabay waxa kale oo la magacaabay madaxdi ciidamada qalabka sida oo iyaguna waqti munaasab iyo rageedi ah aad iyo aad aan ugu kalsoonahay ayaan qabaa inaad ugu wada raacsantihiin taliyaasha cusub ee ciidamada qalabka sida loo magacaabay sideedana caalamka ay caadi ka tahay hadii dib yimaado isbedelka la sameeyo waxa la keenaa akhyaarti ka saar leh dibka ummadda waa u duceynaa kulligood waana hambalyeynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh